Xildhibaanada Golaha degaanka ee degmada Burco kala fadhigoodii 19aad ku yeeshay howlka shirarka ee dawladda hoose magaalada Burco ayaa waxay ku ansixiyeen daraska miisaaniyad sanadeedka 2019-2020 waxaana shir gudoominayay kala fadhigani maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo dhinac fadhiyo maayir ku-xigeenku kulankan ay warbaahintu dibadda ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidyeennada la hadlay maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale xoghayaha fulinta dawladda hoose waxaana halkaan ku ansixinay miisaaniyadii 2019 iyo 2020 miisaaniyadaas oo runtii aan ku odorosnay waxqabadkii miisaaniyadii hore oo runtii guul weyn u ah gobolkan Tuuleer iyo degmada Burco oo miisaaniyadaas oo wada qabsoontay horumarkii aan ugu talagalnay degmada dhinaca arrimaha bulshada caafimaadka biyaha waxbarashada iyo wadooyinka iyo waxyaabaha kale asaasiga oo dhan waxaan filaynaa miisaaniyada 2020 kana sidii Ilaahay aan uga baranay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeeyo dadweynuhu iskaaga garab taagan shaqaalaha iyaga iyo maxay ahayd cid ku shaqaleena ay runtii ka qayb qaataan sidii uga qayb qaadan jireen miisaaniyada insha Allah ta'ala sanadka dambeeyay waxa ka muuqda kobac hadii alla ka dhigo mashaariic fara badan waa ay ku jiraan إن شاء الله تعالى وحنا ندون هدي له رالي كله مشاريعها فرا بدن لبرعو إن نسيل باللابنو أو نقبلنا هدي له رالي كنقله تدوينا ربع عنها هلك وحنا وجمع هالنقينا سيدا ونكسنا عشور توبحية وحنا وسي كلنا كسي وعي قليلنا موادن عشورته عاد بحسوا حلقوا قبتها وح مو قال بدن باكاركتين أنه ودوي بدن مشاريع بدن وح بدن قبلنا waxaanu ku qabanaano waa cashuurta yar la idinka qaado iyadoo wada ognaysay leeyahay xoolaha Burco ay xiran tahay burcana ay tahay dakhligeeda koowaad zeelada xoolaha oo ah tan weyn geeska Afrika haddana itaalka iyaga alxamdulillah rabbil caalamiin sanad kasta waxaanu qabanaa wax qabad badan oo muuqdo aragtaan marka dadka waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer Burco in ay sida sharafta leh ka sii laabaan oo ay u bixiyaan muwaadin عشورته بحسه أنا قال واحد نقول واجبه إنه إن شاء الله تعالى وحقبت كي يصير الله محمد يوسف عبد الله محمد وردي صومالي كبل تي في برو.